waxaad la socotaan daawadayaal tibinteena tooska ah ee barnaamijka Hawraarsan waxaadna ka daawanaysaan telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi isla arrimaha Kenya oo ku socon karna no problem madaxweynaha dalkan Uhuru Kenyatta ayaa shalay u anbabaxay dalkaasi iyo Koonfur Afrika halkaas oo ay ku wada kulmeen ama uu ku kula kulmay dhigiisa Ramaphosa waxay kala saxiixdeen baa leeyahay heshiisyo dhowr ah oo aad ugu muhiim ah dalka ilaa 8 heshiis baa la gaaray dhanka ganacsiga ama transport systemka labada dal sida isaga gudbi lahaayeen macnaha waxa jirta gawaari waaweyn oo alaab qaado oo halkan ka baxdo ilaa South Africa oo tagto sidii looga fududeyn lahaa arrimahaasi transportationka ee dalka Kenya badeecooyin fara badan bay u gudbisaa ama ay geysaa dalka South Africa ganacsi weyn bay la leedahay ku dhawaad 30 sano haddana 30 sano waxay leeyihiin aad baan uga riyaaqaynaa xiriirkii wanaagsanaa ee adka ee ka dhaxeeyay labada wadan sidoo kale waxay ka hadleen kordhinta iyo wax ka qabashada arrimaha caafimaadka labada dhinac South Africa waxa lagu tilmaamaa wadamada uga caafimaadka badan Afrika ama uga facility-geed ama goobaheeda caafimaadka ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ay ku jirtaa Kenya marka waxay doonaysaa in ay ka soo minguuriso qaabka ama habka ay u maamulaan arrimaheeda caafimaadka sidoo kale wax laga qabto in caafimaadka ama goobaha caafimaadka ama facility-ga si loo improve gareeyo ama kor looga qaado heeraha caafimaadka dawladda Kenya iyo labada dhinacba sidoo kale waxay ka wada hadleen ayaa leeyahay diplomacy consultation arrimaha la xiriira diplomasiga ama xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac oo maybe waxyaabo badan oo hoos ku jira laga yaabo laakiin intaasi un bay hadda la soo sheegay tan kale arrimaha dalxiiska ee labada dal iyo sidoo kale viisaha muwaadiniinta South Africaanka markuu Kenya yimaado free visa uu ku iman jiray laakiin hadda Kenya waxay doonaysaa in iyadana muwaadinkeeda ay baasaboorka Kenyaanka haysto markuu Koonfur Afrika wax visa aan la weydinin iyo sidoo kale diyaaradaha ama ganacsiga diyaaradaha ee labada dhinac in kor loo qaado si dhaqaalaha labada wadan runtii iyo shaqo abuur looga hagaajiyo labada dhinac muwaadintooda Hamzo sida sheegtay oo shalayna warbixinteena ku jirtay South Africa iyo Kenya xiriir qoto dheer oo saaxiibtinimo ayaa ka dhaxeeya waliba 30 sano ugu dambeeyay waxaadna moodaa in isfahamkoodu aad u xoogay waliba waxyaabaha ugu waaweyn ee xiriirkaasi aadka loogu mahadin waxaa kamid ah xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha wax isweydaarsiga sida sheegtay Kenya wax soo saar fara badan bay dalkaasi geysaa oo dabcan ay qaadaan baabuurta ama gawaarida noocyadooda kala duwan waxaadna moodaa Kenya inay focus ka saarayso dhaqaalaheeda sidii uu ku kobci lahaa wada kasta iyo jid kastana ay u marayso hadda heshiiskan oo malaha 7 qodob ka kooban waxaad moodaa inuu inta ugu badan quseeyo dhaqaalaha ganacsiga xoojinta xiriirka oo arinta fiisaha soo qaadayna ay qayb ka tahay Kenya hadda waxay dareemaysaa in South Africa sida shalay muhiim ugu aad maanta ay muhiim ugu tahay brin ay ugu noqon doonto oo fursadda ay haysataan aysan ahayn mid la lumin karo aad iyo aad waa sawaha ugu waaweyn ay tan u sameynayso xukuumadda dabcan Uhuru 10 sano ugu dambeeyay waxaad moodaa in wadanka dhaqaalahan aad u kordhiyay marka qaarkoodna waxa la eedeynaya xukuumadda xogaa dhaqaalaha hoos buu u dhacay dhaqaalaha Kenya maanta ka qiimeyn karnaa run ahaantii dhaqaalaha Kenya maanta waa meeshii uga liidatay buu joogaa caqabadooyin fara badan baa ku dhacay dalka deymo fara badan baa lagu leeyahay qiimihii shilinka hoos buu u dhacay si weyn sidoo kale waxaa la ogyahay Kenya inay dhaqaale fara badan ka soo xiray jirtay Soomaaliya ee dhanka jaadka isna waxaa muuqata in albaab looga xiray marka Kenya waxay la tacaalaysaa dhaqaale xumo aad u ballaaran taasoo marka sababtay in ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweynba ee dalka canshuur xad dhaaf lagu kordhiyay marka waxa muuqata in Kenya ay doonayso in caqabadooyinka ku gadaaman kobcinta dhaqaalaheeda run ahaantii ay bal isku daydo inay wax ka qabato sidoo kale caqabadooyinka dhaqaalaha dalka hoos u dhigay waxa kamid ah musuqmaasuq baahsan oo dawladda lagu sheegay madaxweynaha laftinkiisa ayaa afkiisa ka baahiyay ama sheegay in maalin walba 2 bilyan oo shilin laga laayahay ama laga xado akoonka dawladda marka waxay qayb ka tahay corruptionkii ama musuqmaasuqan wuxuu qayb ka yahay waxyaabaha dhaawacayo horumarka dhaqaalaha dalka sidaas darteed hadda madaxweynaha wuxuu ku baraarugay ama uu arkay maadaama shilinkii qiimihiisana uu isna hoos aad uga dhacay run ahaantii oo maanta la dareemayo halkii dollar lagu sarifayo 112 shilin iyo cents waxa la dareemayaa marka in qiimihii nolosha dalka ay sare u kacayso dawladda dhaqaale fiican aysan haysanin
waxyaabo badan budget badan laga sugayo deymo fara badan laga sugayo marka sidaas darteed waxay doonaysaa bal inay wadooyin ay dhaqaalaheeda wax uga qabato ay isku daydo marka si loo gaaro yoolkaasna wado kasta ay u maraysaa iyadoo xukuumadda ka fogaanaysa dhaqaalaha hadda socda dabcan uu sii fogaado